جحا وانين قادنتينا بدن تقانين علماء التاريخ waxay yiraahdaan waa shakhsiyad khayaali ah oo aan jirin laakiin dal walba wuxuu leeyahay juxadiisa gaar ku leeyahay carabtu waxay yiraahdaan juxa waa nin carab u ahaa waxaana la oran jiray abul ghusn baa la oran jiray wuxuu noolaa qarnigii 1 iyo 2 hijriga ahaa halka turkidu ay yiraahdaan may juxa waa nin turki u ahaa waxaana la oran jiray nasruddin khoja baa la oran jiray si kastaba ha ahaatee juxa waxa weeyaan wuxuu ku faafay sheekooyinkiisa waxay ku faafeen dal walba iyo dicil walba oo kamid ah adduunka qaar kamid ah dadku waxay yiraahdaan juxa wuxuu ahaa nin doqon u ahaa isagoo laga qeexanayo sheekooyinkiisa qaar kalena ay aaminsan yihiin inuu juxa ahaa nin aad u maskax badan sheeko kamid ah sheekooyinkiisa ayaa juxa nin baalbaabka ku soo garaacaya markaas wuxuu weydiisanayaa inuu amaahan karo dameerkiisa juxa wuxuu ku leeyahay waan ka xumahay dameerkii nin baa iga qaatay isagoo sidaa ninkii ku leh ayaa dameerkii baa gudaha ka qaylinaya ninkii yimi ee weydiisanaya dameerka ayaa indhihii taagaya markaasuu ku leeyahay juxow dameerku sawka gudahan ka qaylinaya maxaad been igu sheegaysaa juxa wuxuu ugu jawaabayaa maanaad rumaysanaysaa mise dameer baad rumaysanaysaa sheeko kale oo juxa sheekooyinkiisa ka mid ah ayaa waxa la sheegi jiray inuu juxa labo xaas lahaa xaas weyn iyo xaas yar gabar yar ah oo u dhawaan u gursaday maalin ka mid ah maalmaha ayaa wuxuu go'aansaday inuu labadooda u kaxeeyo dhinaca badda doon buu saaray doontii juxa markuu labadoodaba saaray isaguna dhexda ugu jiro ayaa xaaskii weyneed baa su'aal aad u adag weydiisay waxay ku tiri juxow haddii ay doontana la degto yaad badbaadin lahayd maanigaad badbaadin lahayd mise xaaskan kale ee yar baad badbaadin lahayd juxa midigtuu eego wuxuu arkay xaaskiisii weynaa carruurtii oo dhan u dhashay bidixdii buu eego wuxuu arkay gabadhan yar uu guursaday ee dhalinyarada ah fakar dheer kadib baa intuu xaaskii weynaa u jeedsaday baa wuxuu ku yidhi xaajiyo waxaan u malaynayaa dabbaasha inaad si fiican u taqaanid taas oo macnaheedu ahayd inuu tan yar badbaadinayo sheeko kale oo ka mid ah sheekooyinka juxa laga sheekeeyo waxa la sheegaa inuu dabaq deganaa dabaqan saddexaad ama afraad ku deganaa nin baa maalin ka mid ah albaabada ku garaacay markaasuu daaqadii ka eegay ninkii baa wuxuu ku yidhi juxow ii soo deg markaas wuxuu ku yidhi kuma soo degi karee halkan iiga sheeg waxa u baahan tahay markaas wuxuu ku yidhi maya aadi si daruuri aan kugu baahanahay soo deg juxa wuu soo degay markuu soo degay ayaa ninkii baa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa wuxuu naadisay sid nin miskiin aan ahay juxa baa wuxuu ku yidhi ninkii miskiinka ahaa isoo raac buu ku yidhi gurigii ayuu koosiyo dabaqii afraad markuu geeyay wuxuu ku yidhi ilaahay hana siiyo ninkii baa aad u xanaaqay miskiinka wuxuu ku yidhi oo maxaad igu sheegi weyday maanta oo dhan markaan hoos joognay in maxaad igu oran weyday ilaahay hana siiyo halkan maxaad igu sheegaysaa markaasaa juxa wuxuu yidhi adigu markaad hoos joogtay anna aan kor joogay maxaad igu oran weyday niyow lacag baan kaaga baahanahay meel sheeko ka mid ah sheekooyinka kale ee juxa laga sheekay waxaa ka mid ah maalin ka mid ah nin dameer haysta iska leh oo dadka waxa weeyaan dameerka ka kiran jiray ayaa wuxuu ka codsaday in alaab uu soo iibsaday raashinkii uu bishii soo iibsaday in uu u qaado lacagna uu ku siiyo waxa dhacday ninkii raashinkii buu dameerka ku raray suuqii iyadoo labadooda wada socda ayuu ninkii dhuuntay ninkii dameerka iska lahaa ayaa isagii iyo raashinkiiba la dhuuntay juxa intuu uu raadiyay markuu ku daalana uu ka quustay bil markii laga soo wareegay ayaa juxa oo la jooga asxaabtiisa dukaan fadhiya waxa dhacday in uu ninkii dameerka iska lahaa uu soo maray dukaanka hortiisa juxa booday dukaanka gudihiisu galay alaab meesha taalana isku daba qariyay asxaabtiisa aad u yaabo way weydiiyeen oo waxay ku yiraahdeen niyow maxaa ku dhacay markaas wuxuu yiri ninkii meesha marayay waxa weeyaan waa nin dameer iska leh oo markaa alaab ii qaaday maalin dhow markuu alaabtina ii qaadana alaabtii gala cararay markaas waxay ku yiraahdeen oo maxaad noogu sheegi weyday waan qaban lahayna
markaas wuxuu waxaan ka baqday inuu weydiiyo kiradii dameerka inuu weydiiyo oo lacagtaas uu weydiiyo taasan ka cararay. Salaamu calaykum.